بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسنا خيارتي أود يقطع ونسا كسر هذا وركي سومالي ذي عالم كودي وجود بيوت هذا كل كذا وطن يوتيوب كان مقالورات كان صار صعدوا بعد ما waxaad ku maqli doontaan macluumaad ku saabsan safar degdeg ah oo ciro uu ku tagi lahaa Tel Aviv oo galay xaalad adag dagaal xun oo dhex maray horjoogayaasha shabaab kuwooda ugu caansan iyo horjoogayaal sare oo firfircoon oo la xiray intaan ku soo gudbin labadaas qodob oo faahfaahsan fadlan muuqaalka leega saar YouTube-ka waa daawataan leeguna uu yar yahay macluumaadyo badan ayaad halkan ka daawan doontaan YouTube-kana waa update markaas fadlan muuqaalka leega saar oo share garay ugay dadka u baahan xogahan inay wax ka ogaadaan aynu ku bilownay saaxiibayaal saad muuqaalka hordhiciisa aad ku maqlayseen daawadayaal horjoogayaasha ugu sarreeya milishiyadka shabaab ayaa la sheegayaa inuu kala tafaraaruq dhexdooda uu soo kala galay sidoo kalena waxa la xiray horjoogayaal sare oo ugu firfircoon oo kooxda dhexdeeda ah oo xabsiga loo dhaadhiciyay shakhsiyaadka xabsiga loo dhaadhiciyay intaan ku soo gudbin sidoo kale waxa jirta warbixin kale oo macluumaad iyadana sheegaysa sirdoonka Soomaaliya iyo sirdoonka shabaabna inay isku dhex milmeen sida uu sheegay Mahad Karatay oo sheegay weligeed anagu waanu kala ilaalin weynay laakiin wax kasta imika waxay noqdeen biiri kuwa isdhex galay kooxaha wuxuu yiri sirdoonka galay ha ka soo toobad keenan kadibna dambiyadooda ayaanu u cafinaynaa ayuu leeyahay bal imikana aynu eegno shakhsiyaadka la xiray kuwoodii ugu caansanaa waxa kamid ah Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo loo yaqaano Akrama Cabdiraxmaan Ashqari oo ah agaasimaha wargelinta oo hore uga tirsanaa kooxda qaranka ee Soomaaliya ayaa bartiisa Twitter-ka wuxuu ku soo sheegay in ninkaasi xabsiga la dhigay waa ninka lagu magacaabo Cabdiqaadir Ashqar oo la baxay Akrama in xabsiga la dhigay bartiisa Twitter ee X oo ku soo qoray ninkan in xabsiga loo dhaadhiciyay gabi ahaantiisaba sidoo kale Akrama wuxuu kamid ahaa bishii Abriil 2026 dagaal dalka ka dhacay ayuu ku lug lahaa sidoo kale ninkan Akrama la yiraahdo wuxuu dhashay sanadii 1979 wuxuuna ku dhashay magaalada dalka Kenya ee Mombasa qabiilhaadna wuxuu ka soo jeedaa qabiilka dogoodi lagu magacaabo ayuu ka soo jeedaa sida ay qorayaan saaxiibayaal warbaahinta caalamiga ah oo ay ka mid yihiin Reuters, N1T, KR, TV2 iyo kuwa kale sida ay warbixinta ku soo gudbinayaan sidoo kale ninkan Kenya waxay ku eedeysay September 2013 inuu ka qayb qaatay dagaalkii ka dhacay Westgate Mall oo wada ogeydeen dhibaatadii halkaas ay ka geysteen qawaarida shabaab sidoo kale sirdoonka Kenya ayaa waxa ay rumaysan yihiin ninkan inuu ka dambeeyay ama inakan saad warka aad u dhigtaanba inuu ka dambeeyay dagaalkii jaamacadda Garissa County ka dhacay isagana 2015 halkaas oo lagu dilay baa la yiri 48 arday oo halkaasi wax ka baranaysay haddaynu macluumaadkaas Akrama halkaas uga tagno imika iyo ciro sida ay sheegayaan hay'adaha ammaanka ee Somaliland oo gabi ahaanba warkan uu yahay mid la qariyay ayaa haddana warkaasi waxa soo dusiyay kuwa sirdoonka Somaliland kamid ah war degdega ayaa yimid baa leeyahay safarka madaxweyne Ciro oo Tel Aviv iyo waraaq qarsoodiya oo Netanyahu uu u soo diray inuu ku imaado magaalada Tel Aviv dhowr sano kale ayaa jiray safar oo ku bixi lahaa magaalada Tel Aviv madaxweyne Ciro kaas oo baaqday dagaalka Iran iyo Israel iyo Mareykanka ka dhaxeeya awgood tan hadda waraaqdan loo soo diray ayaa leeyahay oo ku eeg maalmo kooban ayaa safarkan wuxuu wajahayaa baa leeyahay xaalada adag sidoo kale dawladda Soomaaliya oo wax kasta la socota ayaa iyaduna waxay isku dayaysaa gabi ahaanba inuu halkaasi ka bixin oo uu Ciro laga baajiyo safarkaas uu ku tagi lahaa magaalada Tel Aviv dhanka kale Iran ayaa iyaduna waxay sheegtay inay xaaladaha Somaliland ay ku hayso isha iyo safiirka ay u soo magacawday isagana Somaliland oo kaas oo isagana la sheegay inuu safar oo ku imaan doono magaalada Hargeysa isagana xaaladiisu ay noqotay mid gabi ahaanba akirantay sidoo kale dawladda Soomaaliya
ayaa la eegaya iyadana sidii halkan ay u xaliso oo iyaduna ay sirdoon badan ay og yihiin inaysa uusa cirana bixi karin ninkaasna oo halkan uusa ka soo degi karin haddaba waxa la leeyahay hadduu ciro oo halkan ka baxo oo taga Talaabiib oo wixii loo soo sheegi lahaa loo soo meeriyo haddana uu ku soo laabto magaalada caasimadda ee Addis Ababa iyo sidoo kale ninkan safiirka loo magacaabayna oo magaalada Hargeysa tago fashil weyn ayay ku noqonaysaa dawladda Soomaaliya ayaa leeyahay haddana waxa dhici karta dad badan oo Soomaaliland tagi lahaa dawladda ka cabsanay iyaguna inay iyagoo ismaqiiqayaan indhaadayga ama indhacadaynaya inay Soomaaliland dalaq ay iska soo dhaxaan xaalka cira ayaa imika wuxuu yahay mid aad u adag Soomaaliland gabi ahaanba kuwa socdaalka warkan way qariyeen laakiin waa la soo dusiyay warkan bal waxyaalihii dambe xaaladda Soomaaliland oo gali karta xaalad khatar ah xuutiga oo isaguna laga yaabay inay Iiraan amarto Soomaaliland gabi ahaan la duqeeyo oo dhibaato iyagu gacmahooda ay ku keensadaan inay dhici karto